waxaan rabaa inaan idin caddeeyo qoraalkan hoos kusoo qoraya aniga inaan leeyahay. sababtan qoraalka usoo qorana waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego. sida aad muuqaalka hordhiciisa hore aad ku aragteen waa Cayuuni Qurux oo ugu dambeyn ka hadashay fiidiyoogii laga baahiyey kana hadashay dad la bartilmaameedsaday magacyadooda waxayna sheegtay Cayuuni Qurux inay baahin doonto ninkii fiidiyooga baahiyey ha yeeshee qoraal dheer ay soo dhigtay barteeda Instagram-ka ayaanu idin akhriyi doonaa. ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe sa gambaleelkana furo asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka. sida kan ugu horreyntii Ilaahay baa mahad iska leh cidda kaliya ee mudan mahadnaq xilliga farxadda iyo xilliga murugada waa Ilaahay oo kaliya. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo garab istaagtay qoraalkaygan waxaan idinku soo gudbin doonaa idinkuna soo qoray inaan runta idin sheego idin caddeeyo. Cayuuni oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi fiidiyowga aniga igu saabsan ee meelahaas la wareejinayo qofka ani waxaan ahay waa ani iyo Ilaahay ayaana isog cidna maanta aragtidiisa waxba igama bedelayso laakiin fiidiyowgaas wuxuu ahaa sanad iyo bar ka hor xilliga layga duubay mana aanan ogeyn. waxaa jiray bay tiri wiil aan wada soconay oo aan moodayay qof raga oo qiimo leh laakiin alle ayaa og cid walba waxa ay tahay iyo waxa uu qarsan iyo waxa uu aaminsan yahay. markii aan muddo wada soconay wiilkaasi waxaan go'aansaday inaan ka hadho xiriirkiisana aan jaro. kadib muddo ayuu daba socday wiilkaasoo doonayay inuu xiriirka soo celiyo oo aan dib ugu soo laabto. markii uu iga quustay kadib ayuu maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ii soo diray fiidiyowgan wuxuuna isku dayay inuu si khasab ah xiriirkeena u soo celiyo. anigu waxa aan ka fekeray inaan wadadaas xun sii qaado anigoo ka baqaya ama ka cabsanaya fiidiyowgaasi inuu faafo oo ku faafo baraha bulshada iyo inaan caqabadaasi wajaho oo aan ku idhaahdo waxaad doonto samee waayo qofka maalin ayuu dhashaa maalinna waa u dhintaa. inaan anigoo dembi qarinaya aan noloshayda la hadho oo noloshayda ay dib u dhacdo walbahaar iyo murugana ku noolaado waxaan ka doorbiday inaan wajaho caqabad kasta. Cayuuni Qurux oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sii raacisay waxaan ka doorbiday in nabarka uu hal mar igu dhaco kadibna aan xor noqdo. sidaas daraaddeed arrinka khusaysa fiidiyowgaas iyo waxaan ka yeeli doono faamligayga ayaa ku jira kamana hordhacayo. Cayuuni Qurux oo ka hadashay ciwaano been abuura iyo dad lagu shaabadeeyay inay faafiyeen fiidiyowgaasi iyo dad la sheegay in baraheeda bulshada la soo dhigay oo sheegtay barahaasi bulshada inay yihiin bara feega magaceedan lagu qortay. waxaa jira bay tiri Cayuuni Qurux magacyo been abuura iyo dad wajiyadooda la soo dhigay ciwaano magacayga lagu qortay waana been abuur. waxaana ka codsanayaa inay joojiyaan oo ay iska dhaafaan magacyadayda ay qoranayaan kuna qoranayaan ciwaanadaasi gaar ahaan sida facebookyada. Cayuuni hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri ma jecli bay tiri qof beri ka oo aan dembi gelin in lagu faafiyo baraha bulshada. sidaas daraaddeed arrinka khusaysa falcelinta iyo waxa aan ka yeeli lahaa qofkaasi sida xun ii galay ee noloshayda ku cayaaray waxaan rabaa inaan uga dambeeyo faamligayga. sidaa daraaddeed waxaan si xushmad leh iyo qadarin ka codsanayaa inaad arrinkaasi aad joojisaan faafinteeda.